بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادا بيجكيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفورو سي أي برامجتو هدبا أي كوسو غاران إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى وحن كهد لدونا موضوع آد مهمة أين مضنتهي إن آد كبراركتid أكسوناتid كهرتكتid تحدر كيسنا آد كيالتid ومهم بدنك موضوعنا كهد لدونا وحخصية أما كساب سنيهي دمرك قيبتو ذا اللقبو qaybtooda aan la guursan wali ee dhalinyarta ah ee doobka ah qaybtooda la furay asbaabaha furiinka keenay waa mowduuca sixirka ilmagaleenka ama makaanka dega sixrul arxaam waxa loo yaqaano sixirka ilmagaleenka inta badan weerarka ku qaada ayaan doonayaa insha Allah wax yar oo tafaasiila inaan idinka siiyo ama aan idin sharxo 7 calaamadood ay ra'iisi ugu tahay 7 calaamadood oo ugu badan calaamaadka lagu garan karayo haddii aad mid kamid isku aragtid inaad la nooshahay sixir loogu talagalay in lagu weeraro lagu xabiso lagu dhibaateeyo riximkaaga iyo makaankaaga iyo xubinka taranka la doonayo in lagaaga maaniciyo awlaada la doonayo in lagaaga maaniciyo caadada iyo xaydka oo ku tusinaysa caafimaadkaaga la doonayo in lagaaga maaniciyo guurka la doonayo in lagaaga maaniciyo galmada oo taxalaasha ah ee adiga iyo zawjkaaga ama la rabo in lagugu dhibo wal ciyaadu billah sidoo kale sixirka riximku hadii uu ku asiibo waxa meeshaasi ay degal yaani degitaan ama maqar u noqon doonta boos u noqon doonta suxarada iyo shayaadiinta oo inta badan meel ay shayaadiinta iyo jimanku ka dugsadaan oo ka dhibaateeyaan oo gudaha kaaga jiraan ayay noqonaysaa wal ciyaadu billah idan insha Allah calaamaadka laba u qaybsamaan sixirka riximka loo sameeyay calaamaadkiisu waa laba إما إن ريوين كقار لغو توسو إيو إما إن أد علامة جد أهانا أدرينتد سحر كالرحمك وحكيني كرايا وتفريق أديغا إيو أضيغاغا أما حاجيغاغا سحر لدوني إن لغو كالك حيو أما وا سحر أديغو دانيارنما أدي أها كو أصيبي أو كو هليلي أما إنت بدن رقا أيا سمية waxaa kaloo kuu samayn karaya haddii ninkaagu uu xaas labaad leeyahay xaaska labaadna qof ilaahay ku xiran ama iimaankeedu daciif yahay saaxir ku xiran hadday tahayna way kuu samayn kartaa si aadan awlaad wayna dhacday runtii in badan gabdho inta la guursaday ilma dhali waaye ama dhashi ku dhibtooday ama dhashi ka soo daadatay waxa u keenay waxa loo yaqaan waa gabadhii kale la qabay ama xaaskii kale oo ninku lahaa gabadh iyadoo dhalinyar ah baa waxa laga yaabaa inay wiil xiriir ka diido ka bacdina wal ciyaadu billah u saaxir u tago ka bacdina sixirka riximka lagaga xirayo oo saaxirku marka yaa imma tacdiil uu noqdaa yaa imma tafriiq uu noqdaa wal ciyaadu billah calaamada koobaad oo ay gabadhu isku arkayso riyadaynu ku bilaabi doonaa ru'yatu nisaa'i inay haweenay aragto dumar fara badan bi ashkaal qariiba iyagoo ugu imaan doona kalariyo iyo qaabab aad u la yaab badan qaabab aysan iyadu fahmaynin dumar fara badan ayay gabadhaasi ku riyoonaysaa qaabab aysan fahmi karaynin bay ugu imaanayaan oo kala noocyo ah kala duwan waxa ayna gacanta ka gelinayaan xubinka taranka ayay gacanta ka gelinayaan naagahaas ama dumarka faraha badan ee ay gabadhu ku riyoonayso wal ciyaadu billah iyadiina markaa way kala cararaysaa gabadhii marka xubinkeedii oo gacanta la raba in la geliyo ama laga dhirbaaxo ama wax lagu dhufanayo dumar gacanta kula sii socda ayay ku riyoonaysaa waa xubinkii taranka ama makaankii wal ciyaadu billah
waana arrin ku tusinaysa inuu jiro sixr al-arxam haddii gabadhu riyada ay ku riyooto. waxaa kale oo calaamada labaad noqonaysaa oo ay gabadhu ku riyoonaysaa in xubinkeedii taranka ahaa kubad ama wax sidii kubadda u samaysan oo kale inuu gudaha kaga jiro oo ka bacdiina uu isdhaqdhaqaajinayo walciyaadu billah. arrintaana waa calaamaadka. calaamada saddexaad sidoo kalena waxaa aad ay gabadhaasi ugu riyootaa mar walba awlaad fara badan. riyada awlaada faraha badan ee ay gabadhaasi ku riyoonaysaa iyaduna waa calaamad ku tusinaysa in gabadhaas sixir arxaama loo sameeyey walciyaadu billah oo la rabo in lagu dhibaateeyo. calaamadaha waxaa ka mid ah riyooyinka ru'yatu thacaabiin takhruju min arixm, masas iyo abeesooyin ka soo baxaya makaankii ama xubinkii taranka ahaa ama riximkii ama sii gelaya. abeesooyin abeese kaaga xaroonaysa, mas kaaga xaroonaya, bisad kaaga xaroonaya. calaamadaasna waa calaamad ku tusinaysa in laguu sameeyey sixr al-arxaam walciyaadu billah. subxaan allah, calaamadahaasi waa kuwii riyooyinka. aan u soo noqdo calaamadaha jidh ahaan iyo caafimaadkaaga saameynaya. mar walba waxaad dareemaysaa laab ciriiriyan, diiqa sadri. mar walba laabtu ciriiriyan bay ku tahay walciyaadu billah. mar walba madax xanuun joogto ah ayaad leedahay, taasina waa calaamad. welibana madax xanuunkaasi xilliyada bacdalcasarku kugu badan yahay, bacdalmaqribka kale kugu badan yahay. xilliyada madax xanuunka aad isku arkaysid waa xilliga aad zawjkiina aad kulmaysaan, ninkaaga aad kulmaysaan, rabtaan inaad xiriirkii gogasha aad samaysaan. xilliyada madax xanuunkaasi kugu badan yahay waxa weeyaan xilliga dowra shahriya, waqtiga caadadu ay kaa timaado oo madaxa xoog kuu xanuunaya walciyaadu billah. calaamaadka aad isku arkaysid alam fi lbadni, caloosha mar walba xanuun nabar kaa qabanaya oo caloosha mar walba in lagaaga dhufto walciyaadu billah, iyaduna waa calaamad. calaamada aad isku arkaysid waxa weeyaan mar allaale markaas tirahdid fariiso in waxa weeyaan meesha barida oo kale, baryaha oo barida oo kale in xanuun kaa qabto oo mar walba aad fariisanaysid ama aad jiifsanaysid oo kale, iyaduna waa calaamad. dhabar xanuunka laftigiisu waa calaamad aad yeelanaysid alam fi asfali dhahri. calaamadahaas waxaa ka mid ah oo walciyaadu billah inta badan aad yeelanaysid inay dowradii caadadii ay kugu xiranto oo dhiiggiibaa kaa istaagaya, dhiiggii oo dhan baad waayeysaa. waxaad kale oo aad isku arkaysaa in dhiiggii uu kaa khalkhalo, mararka qaar in dhiiggii kaa khalkhalo. waxaad kaloo isku arkaysaa in dhiig fara badan oo joogto ahi uu kaa yimaado oo xad aan lahayn, laa cadada walaa xisaab. waxaad kaloo arkaysaa dhiiggii bisha halka mar kugu dhici jira oo 2 jeer kugu dhacaya ama waaba waayeysaaba dhiiggiiba. marka sifaadkaas oo dhan waa calaamado ku tusinaysa in sixir lagu sameeyey. waxaad arkaysaa oo calaamad iyadana subxaan allah in awlaadii lagaa xabiso, alcuqmi uu kugu dhaco oo muddo 20 sano, 5 sano, 10 sano, 7 sano, 8 sano ayaad zawj isqabtaan, ninkaagiina wax ciladoo laydinku sheegayaa ma jiraan. xataa haddii cilad la sheegaya laftigeeda burooyin baa lagugu sheegaya, burooyinka waa la goynayaa, waa la jarayaa, way soo laabanayaan. waa sixirka arxaamta. sixirka arxaamta ayay ku tusinaysaa. marka alcuqmi weeyaan oo dee dabcan sixirkana hadafkiisu wuxuu yahayba in lagugu sameeyeyba inaadan ilmo dhalinba. marka taasi waa calaamad aasaas ah, waa hadafka ay shayaadiinta iyo suxaradu ay lahaayeen walciyaadu billah. calaamada aad isku arkaysid waxa weeyaan atasaaqud اljaniin, yani in ilmihii mar walba kaasoo dilmo, ilmo dilan 3 bilood 4 bilood, iyaduna waa calaamad kale walciyaadu billah. waxaa kaloo ka mid a in mar walba raa'ixa kariiha, ur joogto ah ay kaa soo baxdo xubinkii taranka. xubintaadii taranka ur joogto ah bay yeelanaysaa biduun asbaab. gabar nadiifley ah baa tahay, mar walba qubaysata, xubinkeeda cadrisa, maaulwardi iyo miska abyad iyo dhammaan wixii ilaahay subxana wataala ugu talagalay dee maaragtay oo nadaafad ahaaba sameynaya, haddana xubinkaagii waa uraya. khaasatan xilliga galmada, xilliga gogosha, ninkaagu xoog buu urtaa u dareemayaa. mararka qaar ninkaagu galmada waxyaalaha uga cararayo waxaa ka mid a urta uu adiga kaa dareemayo, yacni inuu joogta urtaasi inta kale xataa mararka qaar ma lihid. marka urtaasi dhakhtar kasta u tagto, wax kasta aad samayso ur joogta ah baa lagaaga furaya
oo adigu aadan shakhsiyadaada lahayn xubinkaaga tarankana uu nadiif u yahay idan marka taasina waa calaamad ku tusinaysa in sixirka lagu sameeyo walciyaadu billaah marka aad reerkaaga iyo faamiliga aad la joogtid aqaaribka waa dadka kuu dhow hooyada aabaha adeerada abtiyaasha ilma adeerada marka la joogtid aad baad u karaahiyeysanaysaa ama ay guriga kuugu yimaadaan ama aad adigu u tagtid iyaduna waa calaamad ku tusinaysa in sixirka riximka lagu sameeyey reerka ninka yani ninkaaga reerkiisa aad ba iyagana u dhibsanaysaa waa calaamad iyaduna ku tusinaysaa waxa loo yaqaano sixirkaasi sida uu u joogo ayaa wuxuu isku bedelayaa oo subxaan allah ilaa cishqin masul caashiq buu isku bedelayaa jinku jeclaaday oo marka dambe marka waxaasoo dhan aad isku aragtid oo calaamado ah marka dambe jin caashiq ayaa kuu imaanaya jinka caashiqa ahi walciyaadu billaah wuxuu sababayaa inuu isagu booskii ninka oo kale uu kuu galo oo saaxirka ayaa soo adeegsan doona oo ka dhiganaya wasiilo oo kale walciyaadu billaah marka kadib waxaad aad u jeclaanaysaa waxa loo yaqaano oo kugu badanaysa shahwadda kugu badanaysa shahwadda dareen fara badan oo joogto ah baa lagugu furayaa xataa ninkaagii dareenkan kuma qabtid laakiinse dareen hadda aadan fahmaynin oo meel uu kaaga yimid oo kale waxaad kaloo isku arkaysaa adigoo marka dambe jeclaysanaya inaadan ninkaagiiba ama kumaba qaba ninkaagi uu ku furay uu kaa tagay ama gabar baaba tahayba guurkii muddo dheer baa kuugu dambeysay kabacdi markaa waxaad jeclaanaysaa inaad gacantaada adigu isticmaashid oo caada siriya wax la yidhahdo aad samaysid oo gacanta marka dambe aad istiraahdid ku raaxayso oo kale walciyaadu billaah iyaduna waa calaamad ku tusinaysa waxa weeyaan calaamadahaas way badan yihiin dabcan toddobaan islaha kusoo koob laakiin lama soo koobi karayo laakiinse waa muhim inaad ogaatid idan xilliga aad istiraahdid xilliga ukumaha la qaadi karayo way ogyihiin dumarku habluhu aad bay uga dharagsan yihiin xilliye waxaa jirta gabadhu ay makaankeeda uu u diyaar garoobayo sidii uu ukuma iyo ilmo u qaadi lahaa marka xilligaasoo kale waxaad isku dayeysaa inaad gurigaaga burburisid waxaad isku dayeysaa xilliyadaasoo kale in waxa weeyaan aad mar walba aad dagaal baad furaysaa xilliyada marka gabadhu ay ka qubaysata caadada oo kale oo marka ninka u galmoodo ilmihiina uu diyaar garoobayo oo marka tabwiid wax la yidhahdo u sameynayo waxaad isku arkaysaa calaamadda waa dumarka la qabo sidii wax mani nin oo kale ah yani nin manidiisii oo kaa soo dhacday oo kaa soo baxday xubinkaaga waad ka dhadhansanaysa waxaa leedahay maxaa biyahan muxuu yahay biyahan biyo rag bay u egyihiin walciyaadu billaah gabadha aan la qabin iyadoo calaamadaha u goonida ah waxaa ka mida mar walba gabadhu marka la yidhahdo heblaayo maad guursatid maxaad u guursan weyday waxay leedahay nimanka zamankan joogaa waa niman dumarka yani dumarka uma fiicna uma roona waxbay iska dhaadhicinaysaa for example waxay leedahay nimanka zamankan waa niman armaa lagu kufsadaabay mar walba ka baqaysaa galmada oo kale ka baqaysaa yani iyadoo aan la qabinba waxay leedahay nimankan niman finisha weeye dumarka way abayus gareeyaan galmaday ku khasbaan waxbaa u sawirmaya mar walba iyadoo la kufsaday oo kale calaamadahaas isku arkaysaa gabadha aan la qabin waxay isku arkaysaa riximkii oo xanuunaya iyo iyadoo sidoo kale meelaha qaar nabaro ka dareemaysa xubinka ka mida mararkay dhakhtarka u tagtay iyada iltihaabaad baa mar walba lagu sheegaa agfashin baa lagu sheegayaa waxaana kugu dhacay baa la leeyahay urba iyadoo kale isku arkaysaa sidoo kale xubinka taranka caadada oo ka khalkhasha ayay yeelanaysaa kulayl bay waxay ka dareemaysaa riximka oo riximkeedu kulayl zaa'id oo joogto ah buu yeelanayaa subxaan allah madax xanuunkaas way leedahay dhabar xanuun way leedahay diiqa sadri laab ciriiriyam way leedahay caajis faraha badan way leedahay guur inaan lagu soo hadal qaadi karin way leedahay gabadhaasi gabadhaas sidoo kale iyaduna caada siriya waxa la yidhahdo way sameynaysaa oo يعني عادو إن مركا أي كذا قطو إن جعنت هذا استعمال مركا مثل عاشق بعد طبعا كل مان أو مركان وحن قبلوا تشنسيجا وحلو فريا درين زائدة درين أي سن لحين النورمال أحين بالو فريا وأنا قرت إن جعنت هذا استعمال وايو درين وحلو فريا أي سن كنترول كرين والعياذ بالله أي سن كنترول كرين مركا طبيعي بي ونقون أيسا مركا مثل عاشق بوحي سكوب الدليا سحر كي خادم
يعني جن كست ساحر معه لكن ساحر كست جن بوتا والعياذ بالله قالوا في رصده إذا علاقة كده حساس سحر كي جنك مر والبوحن هورينا يا وحلو يقان وجنكي والعياذ بالله مركا على مذهن ومصبيان تبى سوهز كلي كريسا وحسوهز كلي كريسا حسد كإشي وحنودن ومصبيان توا خادم لكن السحر كرحمك مرر بدن با واحد عذا انتو نينكو سو سحري نينكاس كبعدي واد غورسته في نينكاس وحو كا سحري غوركي ما لكن رحمكو سحرك كاغا خيري marka sixirka saaxirku markuu riximka kaaga xiray wal ciyaadu billah ilmaadan dhalayni caadada ku calaamaadkan dhan baad yeelanaysaa laakiin ninki waa ku qabaa marka dumar fara badan baa isweydiinaya oo hadii sixir guurka laga sixray maxaa guurki aad u gali weyday oo guurkiiba laga soodiga guurkii galaba soodiga ninki aqbalay soodiga ninki raba marka booskii ahaa inaad nin guursato laga sixno waxa laga sixray رحمك يا مكانك إن مرور بمشاكل لقى غفر والعياذ بالله مركا إلهي سبحانه وتعالى هايدن شافية محا داوة محا علاج وحا علاج قو أنقاذ الشو إيو إن آد بلودين استاوين تاس أي كولا صحة الرقية شوكتاه وآد قرقا قاد كسمي سنسيد إيو وحا لو يقان أذكارتي ويسد وآد حوشنسيد إيو وحا لو يقان استاوين تو آدن كعاش سينين انتاسا علاجه intaas oo cilaaja adkaarta wad ku dadaalaysaa weysada wad ku dadaalaysaa ruqyada gurigaad ku dhageysanaysaa kugula talin maayo inaad intaad hal maalin meel aadid quraan saar samaysid ka bacska soo laabatid laakiin waxaan kugula talinayaa inaad cilaajaad iyo daawooyin aad qaadatid insha Allah inaasan ku soo koobaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad